Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkeena garaadkaaga kor u qaad. Fadlan hadday tahay booqashadaadii koowaad waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto si aad u noqotid daawadaha ugu horreeya waxaa soo dhigno. Sidoo kalena like garaysay si ay u gaaraan walaalo badan. Maanta waxaan idin haynaa qiso aad iyo aad u cajiib ah taas oo u baahan in lagu cibro qaato. Qisadan waxay ku saabsan tahay nin oday ah iyo nin reer baadiye ah. Nin reer miyi ahaa ayaa marayay meel buur agteeda ah, wuxuuna arkay nin waayeel ah oo buurta agteeda fadhiya. Wuuna indho la'aa, waxaana ninka jirkiisa ka muuqday inuu qabo cudurro aad u badan. Waxayna u ekayd in odayga aanu sii noolaan doonin. Qaybo jirkiisa ka mid ah dareen ma lahayn, sidaa darteed hal dhinac oo kaliya ayuu u fadhiisan karay. Marka ninkii reer miyiga ahaa oo odayga in yar gudbay ama dhaafay, ayuu maqlay odaygii miskiinka ah oo leh, "Ilaah ayaa mahad leh, Allihii iga badbaadiyay cudurro badan oo uu dadkiisa ku imtixaanay. Runtii Alle wuxuu iga doortay qaar badan oo ka mid ah kuwa uu Alle abuuray." Ninkii reer miyiga ahaa ayaa ku soo noqday odaygii, wuxuuna ku yidhi, "Walaal, ma waxaad Alle ka badbaadiyay ayaa jirta? Ilaah ayaan ku dhaartay cudur jirkaaga ka maqan ma jiro. Bal Ilaah ka bari, ka tuug inuu kaa caafiyo." Odaygii ayaa isagoo dhinac isku tiirinaya ninkii ugu jawaabay, "Walaal, haddii aan haysto af iyo carab aan Ilaah ku xuso iyo qalbi aan Ilaahay ku xiriiriyo, maxaa kaloo iga maqan? Nolosha qiimaheedu waa intaas dad ayaan haysan. Iimaanka aad ayaa loo iskugu dheer yahay." Erayadan ayaa beddelay